Health benefits of honey. Faa'iidooyinka caafimaad ee malabka uu leeyahay aadanaha. Raw honey amaba malabka ceeriinka ah ee aanan la marsiinin wax modification ama processing ah ee sidii shinnidu ku soo saartay loo isticmaalo waxa uu waqti dheer ahaa qayb weyn oo ka mid ah daaweyn dhaqameedka sida suubanaheena nabadgelyo iyo naxariis dushiisa ahaatee sheegana waxaa ku sugan daawo. Malabka gasacadaysan ee lagu iibiyo dukaamada iyo baqaarada cuntada waa kuwa soo maray warshadayn oo lagu sameeyey pasteurization ama karkarin iyada oo la adeegsanayo kulayl heerkiisu sarreeyo si looga dilo noolaha yeastiga oo ku badan. waxaase kulaylkaasi dartiis meesha ka baxa faa'iidooyin badan sababtoo ah waxa uu kulaylkaasi baabi'iyaa nafaqooyin badan oo uu malabka ka samaysnaa. sidaa daraaddeedna haddii aad malab isticmaalayso waxaa habboon inaad isticmaasho malabka dabiiciga ah ee ceeriinka ah ee sidii shinnadu ku soo saartay loo isticmaalo. marka laga tago malabka inuu qayb ka yahay cunooyinka aan isticmaalno sida maalinlaha ah waxaa jira faa'iidooyin caafimaad oo uu malabku inuu leeyahay kuwaasi oo ay ka mid yihiin number 1 malabku waxa uu ka kooban yahay antioxidants oo ah walxo kiimikaaleed oo ka hortaga dhaawacyada unugyada kasoo gaara free radicalska oo ah isku dhisyo sun ah oo kasoo baxa reactionada jirkeena keenaana in qofku si degdeg ah u duqoobo iyo in ay ku yimaadaan cudurrada kansarka iyo wadna xanuunka. sida ay cilmi baarisyadu caddaynayaan nooca antioxidants ee malabka laga helaahay waa midka loo yaqaano polyphenols taasi oo si gaar ah door weyn uga cayaarta ka hortaga cudurrada wadnaha. faa'iidada labaad malabka waxaa ku jira maadooyin ka hortaga jeermis dhaliyayaasha bakteeriyada iyo fungiga sida hydrogen peroxide oo ah maado antiseptic ah amaba jeermis dile. waxaa kale oo malabka ku jira isku dhisyada loo yaqaano phytonutrients oo qayb ka ah sababaha uu malabku u leeyahay dabeecadaha antioxidantiga iyo jeermis dilka antioxidant and antimicrobial property. sidoo kaleeto waxaa loo malaynayaa in phytonutrientska ay yihiin waxa keenaya in malabku uu kor u qaado awoodda difaaca jirka kana hortaga cudurka kansarka. faa'iidada saddexaad malabku waxa uu ka qayb qaataa in dhaawacyadu ay bogsadaan. nooc ka mid ah malabka oo loo yaqaano manuka honey ayaa laga isticmaalaa qaybaha caafimaadka si loo daaweeyo dhaawacyada sababtuna waa in uu yahay jeermis dile waxtar leh caawiyana in uu dhaawacyadii amaba boogtii ay bogsato. waxaase in hoosta laga xariiqa mudan in aan malab kasta la isticmaali karin oo midka ay xirfadlayaasha caafimaadi isticmaalaan uu yahay sterile ama nadiif oo aadan adigu dhaawacyada u isticmaali karin malab aad soo iibsatay. faa'iidada afaraad malabka waxaa loo isticmaali karaa qufac joojiye cough suppressants. cilmi baarayaasha ayaa soo jeediyey in malabku waxtar u leeyahay joojinta qufaca si la mid ah dextromethorphan oo ah common ingredient ama walxaha ay ka kooban yihiin over the counter cough medications oo ah daawooyinka qufaca ee aad farmashiyaasha kasoo heli karto. ugu dambeynna markii laga taga faa'iidooyinkaas dhowrka ah ee aan kor kusoo xusnay sidoo kaleeto waxaa jiro halis kaaga iman karta isticmaalka malabka maadaama malabka uu yahay meel ay ku noolaan karto bakteriya halisa oo loo yaqaano clostridium botulinum oo soo daysa sun halis ku ah qof kasta si qaas ahna ilmaha ka yar da'da 1 sano. waana sababta keentay in aanan ilmahaasi la siin karin malabka oo xitaa aanan loo dhadhansiin karin. muuqaalkeennina maanta intaas ayaan kusoo koobaynaa. mahadsanidin.